السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. إله نغدك كوها نونسان دادكنا هانونية دمان دادكا سومالية دي برنامج كغفاعو كداواني سومالي كنديان تي في كندا جيسانيا راديو بورمي CKMS 102.7 FM مانتو أمالين سنينة بشهر جولاي 2025 waxaynu barnaamijka ku soo qaadanaynaa waxaan ognahay xaaladda abaaraha gobolka Awdal iyo Salal dadka barnaamijka dhageysanaya waxa aan dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan ugu baaqaya waan gaarsiinaya inaydin Ilaahay dartii ugu gurmataan oo walaaladiin caawisaan إلهينا ويلي تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اسكوك هالميستا وحفي عن هايسكوك هالميسانين حمانتي على الجنة ماذا تدك الصوماليات مالوا البرنامج كداونا يا حديث كي جليل بن عبد الله البجلي نبي صلى الله عليه وسلم مالين مالمها كميدة إساقوا مساجد كتوغا وحاو يمد دلال يابتا أركتدو دسلا أيو أجيهين ظروفتا يدباتنا كموقتا عقاقا سيفوتا درقوقا أنسيتا نبي صلى الله عليه وسلم وجهي سوا مذوبادي تبذوحوا أخري آيات القرآن كاي سورة المنافقين أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت وكل العليي أصحابتي نيو والبوحي وهليي أيو قريي سينتو سغي صغن نقضي مدبا تمر سوقالي مدبا بيه سوقالي مدبا هيد سوقالي مد والبوحبو سوقالي كأنما بورو كلابي نقطي نبي وجهي سبا عداري من سنة سنة حسنة سنة وناكسن قفكي سمعية أجل كيغي لده وحن هل كان وقام هدنقيا دمان dadkii gurmadka qaybta ka qaatay ee ugu horeeyaan dadkii lodkii iga dambeeyay Sheekh Jawhar ka baxay iyo lodkaygii Kalmo Foundation oo runtii iyaguna mahadnaqle iyo kambaliyadii kale ee waaweynaa ee uu kamid ahaa Omar dawladda Djibouti iyo dad kale oo gobolka Awdal oo baayac mushtara oo sida Soomaali iyo Shaabo waxa aan dadka la wadaagaya dadka nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam qofka aan dadka u shukriin ilaahay u mashku waman lam yashkuru naas lam yashkuru allah wanaaga iyo khayrka ay dadka u tareen in la sheego way shirkadaha marka ay media ka hadlayaan sidii habeen hore wasiirkii beeraha hore ina muumiseeda ka hadlayay in uu dadka caam gareeyo ma shirkadaha laga hadlayo ee gobolka Awdal waa Telesom iyo Dahabshiil iyo kuwaasi weeye kuwa aan wali la rabay inay mar horeba orseed ahaayeen laakiin shirkadaha kale magaaladu qayb weyn bay ka qaateen dadkana in loo cadeeyo way kuwii wanaaga la kacayna in la garab galo waxa kale dadka la wadaagaya had iyo jeer amaanadu waxa ay ku wanaagsantahay dadka Ilaahay ka baqaya waxa jira culimo marka horeba ka shaqeynayay arrimahan oo gurmadka qaabilsana culimadii gudoomiyaha gobolku cuqaal iyo salaadiin buu ka dabageeyay waxayna keentay khilaaf aan wanaagsanayn marka dadka culimada in la dhageysto oo la maqlo oo iyaga loo xil saaro way waxa kale oo dadka la wadaagayna waxa in badan saaka wareegaya shaqaaqo nin midi la galiyay oo ay dagaal ka dhex dhacay diida awaare oo u dhaxaysa jiri iyo Cabdiqaadir waxa wada degan beesha Bahabar Caliya Maxarcase iyo beesha Ciise ee Reekuul halkaana mar walbana waxa ka soo noqda shaqaaqo waxa in badan wareegaya hadalla aan dhabahayn bal waxaad la dhageysataan waraysigii saaka aanu xaqiiq raadiska u waraysanay dadka deegaanka mid kamid ah ku soo dhawaada waraysiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan dhawahay xamidow anigu intaan ka ogahay waxa wax raashin ku salaysan ma ahayn beero iyo deegaanba dadku isku shafaajirqeen markaasna soo noqnoqda ka hor way jirtay in horey la isku qabsaday nin ku dhintay beerahaas imikana deegaankii beeri ma la isku hayo wax raashin ku salaysan oo raashin quseeyo maaha inkastoo dhulku abaarayahay haddana dadku waxay isku hayaan waa deegaan iyo ana degan iyo ana degan iyo ana degi doonin ma degi doontid iyo ana lahaan jiray iyo dadku isku hayaan wax ku salaysan maaha raashin iyo wax maamul ah oo siyaasadeed maaha dadku Soomaalida iskood xitaa kulli nin walba wuxuu jecel yahay horta in isagu meesha oo
oonu ka tegi doonin kala meesha si u dhaafiyaan malaynayaa dadkaasi wax raashin ah oo u qaybiyay maamul oo la isku haystay ma jirin haddii laga tagin maalmaha kamid ah raashin uu maxaa dawlad keentay ayaa laba shakhsi isku afdhaafeen taadina laba shakhsi bay ahayd laakiinse wax kale oo hawsha dhaafsan ma ogi laakiinse hawsha imka taaganaya dadku isku haystaan shaqadu ka dhacday shalay waa bisha 27 bisha 7 ahayd waa degaan inta ka ogahay degaan weeyaan waxa soo degantaana imka ma ahayn ilaa mar hore soo noqotay oo soo waana sheeko beer ku salaysan saasan ku xamidu aad baan ku salaamaya halka barnaamijka aad ka daawanaysaan waa Somali Canadian TV kana dhageysanaysaan radio Boorame CKMS 102.7 FM waxaad maalin dhaweyd maqlayseen Xasan ciga coofle waa caaqil beesha Ciise maanta waxa uu joogaa oo uu ka waramayaa oo uu la hadlaya social media dadka ka hadla oo aan idaacad iyo TV ahayn ninkaasi waxa uu joogaa dooxada waraabe oo loo yacdo u dhow waxa jirtay ciidda tanian oxide laga sameeyo dawladda Djibouti iyo Somaliland ay ku heshiis ku galeen ciidda oo la joojiyay ayaa mar labaad imika laga wada hadlo la raba in la furo isaga oo leh dadka deegaanka aan ahayn ba qaadanaya ayaa waxa ay rabaan Xasan Ciise Xasan ciga coofle iyo odayaal kale oo hadlaya bal nala daawada barnaamijka shalay waa ogeyd wixii agabar ka dhacay wixii ceelaf way ka dhacay wax shaqo oo maanta ka socotay ma jiro bari wax ka soconayaana ma jiro sax damba wax ka soconayaana ma jiro annaka deegaan kale annaka xaq u leh deegaan walba khayraadkiisa isaga xaq u leh oo nagu yimiday taasoo ah dixdan kale labadan dixood waxa jirta ciid marka horeba dib nagu haysi waxba ayna kaga filay dadka deegaanku iyo wax aan ku qabnay ayna jir on dhibaato dad nagaga dhinta xoolo nagaga dhinta deegaan nagaga xumaada ahayn annagoo dhibta u dul qaadanayna la joojiyay ciidda saad ogtihiin marka horeba dhowr jeer baan ka dacwoonay oon ka hadalnay oo nidhi war ciidda hala naga joojiyo waxaan ku qabnaa ma jirin saa la ajigeed ciiddii baa la furay baa la yidhi waxaa loo furaa la yidhi dad aan deegaanka u dhalan dadkii deegaanka lahaa ee u dhashayna waxaa la yidhi ninku sharci uma lihidina inaad ciiddaa gurtaan taasi waxay noola noqotay wax yaab cajiib oo maaragtay qofka bini aadanka uu yani maskaxdiisa ka weyn bay noqotay sidaa la ajigeed total horta ma ogolin ciidda ma ogolin waqti baan ku jirnaa abaareed waqti kulayla waqti dadku dhimanayo dhiig joojin loo baahan yahay waqti khilaaf iyo masiibo la abuuro ma joogno ninka sidaa yidhi ee shirkadihii deegaanka lahaa yidhi dadkii deegaanka lahaa ma guran kartiina dad kale xaq u leh inay gurtaanna been baad sheegtaan leena hadday cidu guranayso oon cidu ogolaanayno waxaan u ogolaanaynaa dadkii deegaanka lahaa ku noolaan oo abaaraha kaga bixi oo dadkayaga shaqada dawladaha loo diiray la yidhi xisaabi qaybsiga iyo xaq uma lihidino iyaan ku maalgashanaynaa ku faaco halka barnaamijka aad ka daawanaysaan waa radio Boorame Somali Canadian TV waxa aan dadka ka waaninaynaa fidnada kelmadda la yidhaa waxay ka timaadaa waxa la necab yahay keentaa qadli dadka wada dhashay deegaanka in deegaanka loo sheegto maaha deegaanka waa la wada leeyahay dhulkana ilaahay baa leh waana la wada degaa nimanka aad arkaysaan Xasan ciga coofle iyo rag kale waxa ay yihiin dadka ka shaqaynaya fidnada beesha Ciise iyo beesha Gadabuusi deegaanka dhulku wada degan yahayna dadka abaara ayaa jira in loo gurmado weeyii in mar walba ay ka hadlaan waxyaalo dadka kala fogeynayo wax wanaagsan oo maaha waxa magaalada Boorame saaka ku dhintay jeelka nin dadka Boorame kamid ah bal waxaad nala daawataan dadkii goobjooga ahaa iyo hadaladii iyo warkii saaka aanu ka helay annagu maanta ma aqbalayno intayadaas waxaanu ka simannahay guurka haddiina laga gurayo haddii lagu kala tegayo ma yeelayno annagu midda dhimashaan ka xigna marka annaga laasaa cadaawo laasi doona aabbahay codsi buu dhiibtay markii uu xanuunkan ku soo booday markuu xanuunkan ku soo booday codsiguu dhiibtay waa laga aqbali waayey dawadii uu cuni lahaa oo ciddii qiil uu mutaystay ee u timidna inta la qabto la xareeyo markii waxa laasi doona haddii ilaahay idmo
markaan dhiiggiisa meel ku ogaano dhiiggaana waxaan ku leenahay dawladda barnaamijkaad ka daawanaysaani waa raadiyo Boorame Soomaali kan dib waligood tafqatira Xaamud Suldaan Cali Cilmi Suldaan